maanta waxaa sharaf noo ah in aan daah furno tartan kubadda cagta ah kaasoo dhaxmari doono iskuulaadka deexda dhaxmari doono kuwaasoo ka kooban iskuulaadka tartanka maanta dhaxmari doono waa ilaa 8 kooxood waxaana tartankan maalgelin doono ama taageeri doono Yaasimiin Foundation hay'adda Yaasimiin ayaa kaalin weyn ka qaadatay in tartankan uu soo noo qabsoomo tartankan maanta waxaa daah furay iskuulaadka oo nasiib u yeeshay iskuulka Yaasimiin iyo iskuulka Carafaag ayaa nasiib u yeeshay isboortiga waa saxgal bulsho runtii waxay cadeynaysaa midaan in isboortigu deegaanada ama deexaha inuu horumaray waxa arkaysaan tartankii la soo dhaafay aan ka qabanay degmada Balcad iskuulaadka ugu horeeyay inay ka imaadeen deexaha koobka ugu horeeyay inay soo tartanka aan qaban ay ku guuleystay iskuulaad kamid ah deexaha marka waxay cadeynaysaa isboortigu inuu saxgal yahay deegaanadana ay aad isboortigu u dhaxgaleen waxaan rajaynayaa tartankan inuu tartan qurux badan noqdo waxa xiga doona haduu Ilaahay raa tartan kale oo weyn oo lagu qaban jiray degmada haduu tartankan dhamaado insha Allah kaas qaban doona haduu Ilaahay raa waxyaabii sanadkan ay soo bandhigeen haduu Ilaahay raa ayagana inay soo bandhigi doonaan dadka soo qayb gala martidana ma celihayaa runtii ciyaaraha isboortiga waa nuucyo badan yahay kubadaha la dheelana dabcan waa kala duwan yihiin laakiin isboortiga kubadda cagta oo ah midka mataqaana inta badan dadka Soomaaliyeed ee aad ku xiiseeyaan dunidana aad looga xiiseeyo laftigiisa waa maxaa la yiraahdaa mihnad aad u fiican in mataqaana dhalinyaradu ay maaragtay ciyaaraan waxaan mataqaana maxaa la bogaadinayaa tartankan u dhaxeyn doono iskuulaadka ku yaala deegaanadan mataqaana maxaa la yiraahdaa deexda ee u dhaxeeya degmada Balcad iyo mataqaana magaalada Muqdisho runtii waxaan aaminsanahay maxaa la yiraahdaa isboortiga inuu yahay fariin nabadeed isdhaxgal bulsho iyo mataqaana iyo caafimaad intaba oo jireed saas daraadeed waxaan u rajaynayaa maxaa la yiraahdaa yani tiimamka ciyaari doonana dhammaan guul aan wada rajaynayaa sidoo kale mataqaana hay'adda Yaasimiin Foundation oo barnaamijkan mataqaana maxaa la yiraahdaa isku dubaridkiisa iyo hirgelintiisa mataqaana iskale iyagana waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa jiro jooga si gaar ah mataqaana ambassador Maxamed Cali America oo ah maxaa la yiraahdaa dhiirigeliye isboorti dhiirigeliye bulsho asagana waxaan leeyahay ambassador mahad ka gaarto inta aad mataqaana dhalinyarada waqtiga badan ay gelinayso runtii waxa waay maxaa la yiraahdaa waxa sidaa fariin nabadeed waana maxaa la yiraahdaa kaga mahad celinayna mar guud ahaan waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa guuleysta salaamu alaykum muliyaasha iyo macallimiinta iskuulaadka deexda waxaan mahad celinaa madaxda ka soo qayb gashay xafladan si la sheegay waa xaflad aad muhiim u ah anaga hadana Yaasimiin Foundation markaas waxaan taageernaa isdhaxgalka bulshada marka ciyaaraha way ka mid yihiin isdhaxgalka bulshada waxaan kulli u rajaynayaa kooxaha ka soo qayb galay guul insha Allah taala xaggaas waxaan ka qeylinayaa taageerayaasha ciyaartu noo furan tahay aan bilaawno insha Allah